السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو محمد بشار وكترسن أورك بش عصر الصومالية. سيدان وداونا قفك ugu horeeyay qaba caabuqa corona ayaa laga helay dalka. Haddaba halkan shan waxyaabood ka ogaw oo u baahan tahay inaad ka warhayso. Kow, cudurkan waxa uu ku dhici karaa qof kasta isagoo aan ugu aaba yeelaynin qabiil, diin iyo midab. Astaamaha fudud ee lagu garan karo waa qufac qalalan iyo qandho daran. Halka markuu adag yahay uu keeni karo oo fureen dhibaato neefsashada ah. isla markaana mararka qaar si fudud oo qofku ugu dhiman karo. Labo, cudurku waxa uu ku faafaa qofka qof. Marka qofka cudurka qabo uu hadlo, qufaco ama uu hindhiso. Dhibcaha ka soo baxan ay gaaraan afka iyo sanka qofka ag taagan ama hareerihiisa. Waxa sidoo kale kula habboon in aad isticmaasho marka aad qufacayso ama hindhisayso xusulka ama sidoo kale safaleeti isla markaaba aad ku tuurto meel ku habboon. Saddex, sida ugu habboon ee looga hortago faafitaanka cudurka waa in si joogto ah gacmahaaga aad ugu dhaqdaa saabuun muddo 20 ilbiriqsi ah, kana fogaataa taabashada indhaha, sanka iyo afka. Afar, iska ilaali salaanta gacanta iyo inaad u dhawaato qof qufacaya ama hindhisaya una jirso ugu yaraan 1 mitir. haddii aad isku aragto astaamaha sida qandho iyo qufac qalalan, waxaa kula habboon inaad isgo'doomiso si looga fogaado faafidda cudurka. sidoo kalena aad la xiriirto goobta caafimaad ee kuugu dhow. waa in sidoo kale aad yarayso booqashada dadka buka, isla markaana aad ku dadaasho nadaafadda goobta aad ku sugan tahay. 5, haddaba fariintan la wadaag saaxiibada iyo dadka kuu dhow si looga hortago faafitaanka cudurka. tani waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa la dagaalanka aragtiyada qaldan sida in cudurku uusan ku faafin meelaha iyo cimilada kulul, waana khatar.